cabdi maxamed amiin waxa uu ku dhashay magaalada gabiley 1935 magaaladaasi oo ku taalla inta u dhaxaysa magaalada hargeysa iyo magaalada boorame dhalashada cabdi maxamed amiin waa qiyaas sida uu ii xaqiijiyey cabdi maxamed amiin waxa uu ku barbaaray kuna hana qaaday sida uu sheegay kuna reeraystay magaalada muqdisho 1953 ayaa cabdi maxamed amiin waxa uu fanka ku bilaabay magaalada hargeysa cabdi maxamed amiin ayaa diiwaanka hilin hayaan marka uu soo baxay kadib waxa aan kula kulmay magaalada jabuuti ee dalka jamhuuriyadda jabuuti dabadeedna waxa aan wax ka weydiiyey bal buuggan hilin hayaan ee lagu ururiyey maansooyinkiisa iyo heesihiisii marxaladaha kala gedisan soo maray in wax nooga bidhaamiyo soo dhowow waad mahadsantahay yuusuf aad iyo aad baan idinku mahadinayaa haddaad b b c tin yani wakhtigan iyo fursaddan aad siiseen bal inaan wuxuun taariikhda in wixii aan tiriyey wixii lumay ama maxaanku idhahdaa si kale u baxay mooyaane aan isku soo ururiyey oo wax uun taariikhahoo bal sugaantiia aan ka tago maxaanku idhahdaa markii tii alle ii timaado iyadana waa mid aan ku faraxsanahay ilaahayna uga mahadinayo igu simay wakhtigaasi haddaan maxaanku idhaahdaay wax yar saxitaan aan sameeyo wakhtigii aan ka tegey maxaanku idhahdaa 82 ee aan jabhadaha ku biiray jabhadaha ruuxooda dhexdoodii baa 2 marxaladood noqday iyaduna laakiin waan isku qaaday waan u imaan doonnaa middaasi aannu ku bilowna cabdiyo marka bal heestan caanka noqotay ee 1962 aad curisay ee aad ku bilowday marxaladda dawladdii rayadka geediga wadaay bal inooga taariikhee ka taariikheeyey ummadda soomaaliyeed markay gobonnimada doonaysay innagu dadkay guuraayno reebaadiyo oo dawladnimo waxba kama inaa noqonin dadkii markaa hoggaanka hayey ee inoo maxaanku dhaha madaxda ahaa ee xisbiyadii ka mid ahaa SNL USP SYL gobonnimo doonka labada dhinacba dadka waxay khudbayn jireen oo sheegi jiray dawladnimo haddaan qaadanno in dhibaato oo dhammi inaga dhammaanayso aynu sida raha wadhaad ahaynayno waa garta ma inagaran macnaha dawladnimo waataan dawladnimadii qaadannay 62 markay tahay ayaa durba la yidhi hey waar siduu sidii maahe 2 sano kadib ilaa dad fudud baynu nahay oo gaajaysan oo ordaye maxaa dawladnimadii ku dhacay markiiba dadkii wakhtigaa joogay ee abwaaniinta ahaa ama waxaa alifayey hadallo badan baa laga yidhi masalan qaasim in la yidhaahdo caanaho maxaanku dhahday waxaa lahaa wuxuu yidhi isma doorinkaan shalay diriya daarta kii galaya sidii bay dacaha qalladii uga daloolaan sidii baa dagaaroo biyaha loo dagooraya sidii bay u dabagoostay haradii doollo macnaha wax horumaraho la sameeyeyba lama arko ma jirto halkiin baan taagannahay nin kalena wuxuu yidhi bal muxuu macnayo ay taray ministerkaan doortay halkaas ayay ka bilaabatay ninka la yidhaahdo cali sugulle isaguna hees butriya la yidhahdo hanaloo degooy waanu daalanahe hanaloo degooy halkaas ayaan annaa heestan geediga wadaay aan kaga daray oo aan leeyahay aynu hore u soconno yaynaan deginoo qalbi jabinoo maxaanku dhaha hadda durba siifine geediga ha la wado bal inoogu dhufo hadda heestaa geediga wadaay sidii loo qaadi jiray waaya waxay odhanaysay nin gumaysi raacay isagoo go'ayee gobonnimo nin doonay guulba u dambaysee guulaystayaal geediga wadaay dadkiina la gudboonaaday wuxuu u guuraye nin qabiil gargaarsaday meel la gaadhi maayee guulaystayaal geediga wadaay qurqurka iyo heeryada guudweyne saaroo rayskii aan gaadhne guduntana afeeyo guulaystayaal geediga wadaay iyadoo gugii da'ay gabannada aad leedahay oon laguma gooye jiilaal gawaanahe guulaystayaal geediga wadaay isticmaar gaboobiyo midka haatan soo galay waa niyo kulayaalisibkii wixii nala gudboonaa uga gaabsan maynee guulaystayaal geediga wadaay innagaa go'aankii libta gaadhin doonno goblada iyo dhaantada ku garaacan doonnee guulaystayaal geediga wadaay waxaa loo qaadi jiray dadkii nala gudboonaa dayaxuu u guuray nin qabiil gargaarsaday meel la gaadhi maaye guulaystayaalow geediga wada geediga wada geediga wadaay raadiyaha laga saari jiray raadi muqdisho iyo adaa qaadi jirtay qaadi jiray ha
halka ayaad marxaladda ka sii ambaqaaday markaasaa waxaad jirta oo buugga iiga dhex muuqata kuwa daanka buuxsaday hees la yidhaahdo oo 1965tii aad iyadana ay ku qoran tahay in aad curisay sidee bay ahayd ayaduna dee waxay ahayd halkaa unbay ka socotayoo waa tii maxaanku dhahday dadkii qalbi jabay oo dee dal yaroo faqiirhan waxba haysanin oo inta calan loo taagay la yidhi dawlad baa tiina socda oo nin waliba filanaya sidii intiyadeeda talyaaniga ahayd ama ingiriiska ahayd ee magaalooyinka joogtay say u noolayd inuu u noolaado ayaa salka dhulka lagu dhuftay ilaa socon mayse marka iyada iyo kuwa horay inoo gubay haddana ha u gargaarina labaduba waxay ahayn leegadii leegaday ku socotaa iyo dawladdii sibilka ahayd kuwii hore inoo gubay haddana ha u gargaarina waa doorashadii marka kamaan hore waxay ahayd kuwa daanka buuxsaday ma ka daadinaynaa shicbii hawdanteennii innagaa daboolee dad xaqiisa waayaa dunida ma joogee innaga isdilaynee ma dagaalgelaynaa kuwa daanka buuxsaday ma ka daadinaynaa duruqaanka leegada ku dawoobi mayne ya duruqaanka leegada ku dawoobi mayne dulmigii horeetaa lagu duudsiyayaa innaga isdilaynee ma dagaalgelaynaa kuwa daanka buuxsaday ma ka daadinaynaa waa kaa dadkeennii gaajada la daadsane dumarkiiyo carruurtii dalanbaabi'ayee innaga isdilaynee ma dagaalgelaynaa kuwa daanka buuxsaday ma ka daadinaynaa waxay ahayd kicin bay ahayd ruux hilib dad cunaya deris lagama yeeshee waa marka etoobiyan ka hadlaya deris lagama yeeshee bahal aan ku daynayn dusha laguma qaatee innaga isdilaynee ma dagaalgelaynaa kuwa daanka buuxsaday ma ka daadinaynaa marka waa ka daadintaasun baan joognay waxaad tahay yacni jabhadka caan ahoo dee markaa jabhadina ma jirin laakiin iskiiska caano ah ayaan ahaa weli ha laga daadiyadaasu malayna kuwa daanka buuxsaday